Assalaamu calaykum. Halkani waa wadanka Algeria. Algeria waa wadanka ugu weyn Afrika. Luqadda rasmiga ah ee Algeria waa Jazaa'iri iyo Carabi. Jamhuuriyadda wadanka Algeria waa wadan madax bannaan oo dhaca qaaradda Afrika, xeebta Mediterranean-ka. Caasimaddu waa Algiers. Algeria waa wadanka tobnaad ee ugu weyn dunida amaba kan koowaad ee ugu weyn Afrika. Algeria ayaa xudun u ah waqooyi bari Tunis, dhinaca barigana Liibiya. Wadanku waa jamhuuriyadda saddexaad ee ka kooban 58 gobol, 1541 degmo. Abdelaziz Bouteflika wuxuu ahaa madaxweynaha tan iyo 1999. Algeria oo dhaqaalaheedu ku tiirsan yahay batroolka, dakhliga rasmiga ah ee miisaaniyadda xambaarsan ee soo gala wadanka Algeria waa 30%. Waxa ayna dhoofiyaan in ka badan 95%. waxayna xubin badan ka tahay Jaamacadda Carabta, UNICEF, Bankiga Adduunka, Ururka Iskaashiga Islaamiga iyo weliba qaybo badan. Regents of Algiers waxaa la aasaasay 1516. waxa ayna xukuntaa dhulka waqooyiga ee maanta. Dalkan waxaa qabsaday Faransiiska 1830. inkastoo aan si buuxda loo qabsan, maamulkii Faransiiska wuxuu keenay dadyow badan oo reer Yurub ah si ay u degaan dalka iyaga oo dulminaya dadkii deegaanka xaqa u lahaa, taasoo sababtay inuu qarxo dagaalkii uu bilaabay Setif iyo Guilma 1945. haddaan wax yar kaaga sheego halyeeyadii Algeria waxaa ka mid ahaa Ben Mihidi. Ben Mihidi waxaa lagu tiriyaa inuu yahay halyeey qaran oo Algeria, waxaana loo arkaa inuu astaan u yahay kacaankii soo afjaray gumaysigii Faransiiska. Algeria waxay heshay madax-bannaanideeda 5 Julaay 1962. waa wadan xorriyad ahaan noo dhow laakiin naga horumarsan haatan. dalku wuxuu galay dagaalo sokeeye oo dhiig badan uu ku daatay laga bilaabo 1991 ilaa 2002. marka aad tagto wadanka amaba aad aragto muuqaaladiisa waxaad garowsanaysaa inuu wadanku yahay wadan horumaray. intaasina waxay ahayd in yar oo aan ka soo xigtay wadankan. fadlan intaan haddaad nala soo gaadhay nagu soo biir oo subscribe noo saar channelkeena Bandar Balella.